xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee ku sugan magaalada Boosaaso munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay soo ajibeen xubnaha jabhadda wadaniga ee xoreynta ee Jowxo waxaana ka soo qayb galay taageerayaasha ururka qaar ka mid ah ismada dhaqanka aqoon-yahano siyaasiyiin dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay kulankan ujeedka ayaa ahaa mid lagu soo dhaweynayay shirkii midnimada ururka ogaadeenaya ay ku qabteen magaalada Jigjiga waxaana munaasabadan ka hadlay gudoomiyihii hore ee Jowxo faraca Boosaaso halgamay Shamsudiin Maxamed Cabbaas isagoo xubnaha faray in laga shaqeeyo iskaashiga iyo midnimada bulshada iyo sidoo kale qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii xafladan ogaadeenaya guulaysato ha israacdo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim shirkeenu wuxuu ku saabsan yahay iyo hawlihiisa iyo waxaan soo nimid waa shirkeena caadiga ah ee noo soo socday marka ajendaha shirka iyo hawlihiisa insha Allah waan gali doonaa hadii la yiraahdo marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa Allah inoo suurta galiyay shirkan qiimaha badan marka xiga waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa jamaahiirta Jowxo taageerayaasha sharafta leh ee shirka soo agaasimay salaadiinta iyo culimada iyo aqoon-yahanka nabadoonnada dhammaantood aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waqtigiina qaaliga soo hurteen marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa walaalihii sharafta lahaa ee soo agaasimay xafladan quruxda badan ee isugu jiray gabdhaha iyo wiilashaba inta kadib ajendaha shirkeenu maanta waxa weeye caleema saarka gudoomiyaha cusub Sheekh Naftihure Maxamed Sigad insha Allah inaan soo dhaweyno waxaan leenahay ilaahay ha kugu asturo xilka maanta lagu idmanayo waxaad la kulmi doontaa dad wajiyo fiican oo dhaarsanayaala oo halgamayaala oo ka lixleexanin wixii lagu ballamay xaqiiqaduna ka dhabtahay jaaliyadda ama faraca halgan ee Boosaaso iyo nawaaxigeedu waxay u shaqeynayaan sidii loogu talagalay ay u shaqeeyaan jaaliyaadka caalamka waxay isugu duuban yihiin oo u mideysan yihiin oo dhaqaalahooda iyo dhigaalkooda iyo hawlahooda u bixiyaan sidii loogu talagalay taageerayaasha reer Jowxo waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxa ka jirta halkan farac halgan la yiraahdo ku soo dhawaada qof walba oo lahaa meel uu ka soo galo waxaanu idin furaynaa insha Allah buug cusub taageerayaashu maantu waa wasiirada berri dalkan maamuli lahaa dalkeeni maamuli lahaa weey qof walba iskaga darsamin taasna waxa weeye waa qodob aad iyo aad muhiim oo weey oo danta guud loo wada shaqeeyo insha Allah taala أنا صوّق قابلها يا قدوميها يدبي تاجنا وهذا الكوات كله يراتي بيليه هاي وحنو بشارين يا ضد كهرت إذا كم موضع بقول كيف استعاشن وارد اللينيرو بشارة ندين شيء إن شاء الله تعالى وحل الدل وارد اللينيرو وحل حيرنا وارد اللينيرو وح الله مستعان وحكحهم هذا وارد اللينيرو وح أنت بدن وحك خلدمان وارد اللينيرو هدان النهاي وضياشة عن صور شيء shaqada iyada koow iyo labo iyo saddex iyo afar waxaan u shaqeynaa dhalinyarada beelweynta kuumada insha Allah taala salaam marka waxaan doonayaa in dadka loo sheego fikirkiinuna halka ku istaagin waxaan ka wadaa sidaas baadiyaha fog gabadha ariga la joogta iyo wiilka ariga la jooga waa in loo sharaxaa waa maxay xorriyad maxar baa tahay mise waa lagu gumaystaa yaa ku gumaystaa goorma ayuu kugu bilowday gumaysigan ma dhici kartaa inuu kaa kaco gumaysigan waayo xisbiga kee ku sababi kara inuu kaa kaco gumaystahani waa dhinaca askiga Itoobiya iyo waxay nagala diboon in midnimada la xoojiyo meel kasta la joojiyo in la xoojiyo ururnimada in la xoojiyo xubinnimada ururka ONLF dadku waxay yidhaahdaan xisbi Itoobiyaan uu noqday ONLF shalay qori bay wadatay markii qoriga wadatayna waxa weeye dad badan baa ayaa ka soo horjeeday haddana qalin bay qaadatay oo waxay leeyihiin xisbi Itoobiyaan ay noqotay Itoobiya xisbiga waa dariiq loo maro in la helo afdii dadkaas laga qaadi lahaa Soomaaliyeed ee waddankaas ku nool qoriga shalay markii la watayna waxay ahayd haddii Itoobiya ay diiday wada hadal iyo qalin in qori laga soo qaado marka ummadda Soomaaliyeed ku nool
Soomaaliya dhulka xorta ah waxaan ka codsanaynaa haddii ay shirka kulay fadhiyaan inay halgankii sidiisiiba u socdaa sidii xabadiiba u socdaa qalinka ayaana ka dhib badan xabadii in halgankaas ay taageeraan oy garab istaagaan ninkii shalayto madax ku muday maanta waa inuu maxaan ku idhaahdaa malab afka u mariyaa mudxa badan baa naga soo gaadhgaadhay walaalaha iyo Soomaaliyeed markii aanu xabadda ku dagaalamaynay marka waxaan ka codsanaynaa in hadda wanaaggoodii aan aragno oy taageeraan halgankaas xubnaha ururka ONLF waxaan ku boorinayaa dhammaan xubnuhu inay maartay qaranbileedkii la bixiyo in xubinnimadii la xoojiyo in shirarkii bilaha la qabto in si joogto ah dhamadii ururka aad ogeydeen iyo abaabulkii in la sameeyo dib ha la isku eego macallimiinta waddanka haysata aniga waxa la igu yiraahdaa waddanka macallimiintiina haysata dadkiina wax bartay dadkiina wax yaqaan Soomaha dadka warankayga yaraa ee aabihii lafaha u duugnaa hadduna wax baranay anigana la leeyahay dadkiina dadka wax bara oo iftiin u ah kuwa ina war u hayso dhibaato maaha marka hawsha la isku eego maxaa go'aan inoo ah inaynu akoomo u samayno inaynu la socono keena dhibaataysan in aynu la socon keena suuqa laga saaray ee dayn lagu yeeshay $1 aynu hadda iska ururna wax walba ugu dambeyntiina waxaa kulanka soo xidhay gudoomiyaha cusub ee faraca Boosaaso halgamay Maxamed Maxamuud Siyaade isagoona dhankiisa sheegay inay ka shaqeyn doonaan isxudka iyo horumarinta hawlaha xubnaha Jowxo ee magaalada Boosaaso aywa maanta meesha waa laga sheegay waad garanaysaan Maxamed Maxamuud Siyaade la yiraahdaa waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha shirka odayaasha waxgaradka nabadoonnada dhalinyarada hooyooyinka sharafta leh baxda saxaafadda sidoo kale taageerayaasha reer Jowxo iyo guud ahaanba jamaahiirta Jowxo iyo dhammaanba shacabka Soomaaliyeed bacda salaam qofku markii xilka u tartamo ama soo doorto khudbad buu soo diyaarsadaa wax qabadkiisa kaga hadlayo meesha waa la keenay inuu hoolka saan xalfadda uga soo qayb galay meel halkaas ay istaagayda kuna qoran tahay marka khudbad ma diyaarsanin wax qabadkaygina ma soo diyaarsanin xilka Jowxana waa sidaas oo insha Allah dushan baa la iska saaray laakiin waxaan rajaynayaa sanadkiisii inaan dhaho anigana xilka la ii daayo qolada soo socotana ay igula tartamaan oo yiraahdaan insha Allah uu sidan iska bedelo intay ogaadeen iyo Jowxa qabsato oo hawshu isbedeshay inuu noqdo insha Allah mid la ordahayo waxaan rabaa insha Allah macda salaan farxad badan ma dareemayaa intan oo qiimo ay wajiyaal oo igu cusub oo leeyahay gudoomiyahoodii ah farxad ay igu tahay waana soo dhaweynayaa waxaan rabaa inaan laba qodob ku soo koobo qodob waxa weeye insha Allah dadka waxa iskaga darmaday markii halkii qarinka loo bedelay ayay in badan waxay moodeen inuu halgankii istaagay waxaan rabaa hal daqiiqo inaan ku sameeyo halgankeenu markuu qoriga ahaa iyo markuu qalinka noqday kee uu faa'iido badan yahay aniga ra'yigayga aan aaminsanahay iyo in badan oo iga mid ah halgankeenu qalinka ayuu maxaa ku dhahay kaga faa'iido badan yahay qorigii koow waxa istaagay dhiigii daadanahayay ee shacabka reer Ogaadeniya labo ma ayna dhici jirin magaalada Boosaaso ama gudaha Soomaaliya inaynu isku ugu nimaadno intan oo calankoodii